haddii aad joogto magaalada Muqdisho si gaar ah wadada Maka al-Mukarrama waa caadi in indhahaagu ay qabtaan Cabdirasaaq Axmed Xaashi oo loo garan og yahay musharax burka oo wadada dhinaceeda ku shaaxeynaya galabta waxaa wada casriyeynaya musharaxa iyo TV-ga shanta Soomaali 5 Somali TV ما تسبت وعيارة بعد الموقف عيارة الصدقين يا تاجر تاعي أرسنال تاجر أرسنال اسمه تاجر أنا جلسي من مرات تاجرات عيارته نجعله sawir laga qaaday isagoo wadada dhinaceeda fadhiya iyo waxa ka duway musharaxiinta la midka ah ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaan weydiinay musharax burka aniga waxa iga duwanahay musharaxiinta kale dadkana qofna kama qabo qofna ima ceersanayso qofnana wax uma dhimin marka dadkayga iskaga dhex jira aan kafeega la cabaa la sheekaysta waxay yiraahdaan madaxweynaha burka waa ku taageersanahay haddii codii qof ahaan leed waa kugu shubi lahayn laakiin samaaha saasay yiraahdaan dadkayga iskaga dhex jira aan la sheekaystaa waana nabad meesha Muqdisho waa nabad wax amni daraamaan arag wax ay huruuf ma arag wax ay xumeey ma arag sawirku waxay ahayd Culey Tower ayaa ATM-giisa lacag kala baxay waxaan u socday Hormuud markaan tagay waxa la igu yiri waa xiran tahay waxay aadeen salaad marka salaadii inta ku maqnaayeen ayaan sugayay meesha horteedaan fadhiistay qof baa sawir iga qaaday oo dhabarkayga ah oo baraha bulshada soo galiyay marka anigana markaas waxaan u socday Hormuud inaan EVC-gayga lacag ku soo shubto marka maalin ka bacdi waxaan arkay iyadoo baraha bulshada wareegayso waa wax ku cusub siyaasiyiinta inay dadka soo dhex galaan anigu waa la yaqaanaa waan ku dhex jiraa dadkayga mana iska weynaysiin musharaxan doonaya in siyaasadda uu ka soo galo halka ugu sareysa ee ah madaxweyne ayaa leh rajo fiican waxaana bulshada caasimadda uu ka helaa dhiirigelin musharaxiinta isaga la midka ah iyo siyaasiyiinta ayuu ugu baaqay in bulshada ay soo dhex galaan markaana igu horeyso hadda ka hor siyaasad ma gelin American ku maqnaa aan wax ku soo baranayay aan ka shaqaysanayay haddeertaana igu horeyso waa markii igu horeysay aan sisto wadankaygaana wax u soo bartay wadankaygaana shaqo abuur sameynay wadankaygaana baahida ka saaraya meel sare inaad ka bilaabayso ma ku muuqataa marka ma xilkaan aan qabanayo baahida aan ka saarayo dhul beereedka cuntadii dibadda laga keenayo dhul beereedka ku beerayo aan baahida ka saarayo madaxweyne mooyo cid kale oo ka saari karto baahida ma jirto aan u xushay inaan madaxweynaha isku soo sharxo u imid waxaan ka soo baxay jaamacadda ugu sareysa Washington State waxaana haystaa master degree waxaana rabaa inaan baahida ka saaro waa iga dhab commitment way waxaan sameynayo burkana waa slogan waa halhayskaygi marka anigu wadankan wax u soo bartay wadankayga inaan baahida ka saaro ayaan u imid wadankaygaan baahi aan ka saaraya xilligan qof walba waa uu shaacin karaa inuu yahay musharax madaxweyne waxaase musharaxa dhabta ah noqon doona midka shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha ay siiyaan guddi laga soo xuli doono baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo labadiisa gole mid uu gabagaba yahay halka midna aan weli hooshiisa la bilaabin Abbas Hussein Muse 5 Somali TV Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus